madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa wareegta uu soo saaray maanta waxa uu xilki kaga qaaday barasaabkii hore ee gobolka Sanaag injineer Maxamed Cilmi Xuseen. barasaabka xilka laga qaaday ayuu madaxweynuhu hore waxa uu magacaabay isagoo ku sugan dalka dabadiisa. xilka qaadista madaxweynaha ayaa ku beegmaysa isla isagoo ku sugan dalka dabadiisa oo wali la wareegin xilkaasi, walow mar uu warbaahinta la hadlay uu aqbalay xilka madaxweynuhu u magacaabay. muddo 3 bilood ah uu ku sima ka ahaa barasaabka xigeenka gobolka Sanaag Maxamed Khaliif Nuur oo hore ugu wareejiyay barasaabkii hore ee gobolka Sanaag injineer Axmed Cismaan Xasan. waxa maanta madaxweynaha Soomaaliland wareegta uu soo saaray ku magacaabay barasaabka cusub ee gobolka Sanaag yeelanayo Axmed Cabdi Muuse Warsame laga bilaabo taariikhda maanta inuu ahaado gudoomiyaha cusub ee gobolka Sanaag. Ismaaciil Bakayle, telefishinka caalamiga Sahan TV, wararka magaalada Cergaabo. abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell. macmil ma ogtahay shirkadda Dahab Shell ay ku soo kordhisay application-ka Dahab Plus oo kuu fududeynaya isla markaasina kuu koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee eDahab, Dahabbay iyo adeegyada shirkadda Somtel. waliba Dahab Plus waxaad ugu isticmaali kartaa dal iyo dibadda. hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash. haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 eber 8 afargees ama xidig 2 eber 2 afargees. isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyga Soomaaliland.